qaybtii ugu horeysay ee barnaamijka Somali Week waxaan ku sugannahay xarunta British Library oo ah xarun lagu daahfuro sanad kastaba barnaamijka Somali Week oo ah toddobaad ay Soomaalidu kaga qayb gasho isla markaasina ay ku muujiso hidaha dhaqanka iyo afka ay leeyihiin iyadoo ay ugu bandhigaan ama ay ugu muujiyaan qowmiyadaha kale ee ku nool dalkan Ingiriiska. barnaamijkan ayaa ah barnaamij sanadle ah waxaana isku xilqaamay oo sanad walbaba si volunteer ah u soo abaabula ururka Kayd. halkan ila jooga jaamac iyo Faadimo oo kamid ah maamulayaasha daadihiyaasha dadka isku hawlay sanado badan soo waday haatana ka dambeeya inay shaqadan quruxda badan sii socoto. jaamac waxaad ka warantaa bal sanadkii 11aad dareenkaagu siduu yahay ee la xuseeyo Somali Week ama loo dabaaldegay? bismillaahir rahmaanir rahiim. horta sanad kasta wax baa cusub. xaqiiqdu waxay tahay sanad kastana waxa ku calaamadsan cidda shaqada wada waa run muddo fara badan baa laga soo shaqeynay laakiin haddii cid credit la siinayo haddii laga shaqeynayo waa Faadimo iyo ciidankeeda runtii waxay qabteen shaqo cajiiba waqti yar oo kooban bay xilka la wareegtay tii quruxda wadiga arkaaga dhacday marka waxay ahayd aniga farxad weyn waaye marka 12 sanadood soo dhex joogto maalinba si wuxuu kordhayaan arkayso markaad aragto in ubuxu soo baxay oo markii kugu farxad badan tahay marka runtii aad bay farxad gelisay teamka volunteerska shaqeynaya waxay qabteen shaqo cajiiba oo aan runtii marka la eego waqtiga ku diyaar garoobeen iyo shaqada qabteen 10 cisho oo dhow wayna sugayaan soo darse waqti dheer baa inoo haray isaanu qiimeynta rasmiga ah oo helo laakiin maanta wixii ugu quruxda badnaa aan arko wuxuu kamid ahaa furitaanada kuwii ugu quruxda badnaa waxaan aad iyo aad ii taabtay oo ugu farxay Cabdiqaadir سعيد ودadka yare inaga lumay dad qof saa u qiimo leh artist dareensan hadalkiisa waa dareemaysa uu itaaqay hadalkiisa in qofka caynkaas oo kale oo completely inaga lumo oo South African inaga noqdo waxa weeyaan nasiib wanaag inuu Somali Week inoo soo noqdo oo noqdo fraa oo soo noqonaya inay Somali Week dhexdiisa tahay weeyaan marka runtii wax weyn oo itaaqtay bay ahayd maanta aad u faraxsanahay. jaamac intaan ogahay waxaad ku jirtaa dadka ku taxalluqa dhaqanka iyo afka iyo hidaha iyo dhaqanka afka Soomaaliga xarunta dhaqanka Hargeysa aasaastay Somali Week wuxuu kamid yahay barnaamijyada sida weyn u muujiya hidaha iyo dhaqanka iyo suugaanta Soomaalida. maxaad highlight sanadkan taaban kartaa waxyaabaha ugu waaweyn ee ku jira dhanka suugaanta ama dhaqanka ama afka qusaysa? horta Somali Week wuxuu gaar inta badan u yahay dalkan aynu joogno ee Ingiriiska oo sidaad arkaystaan ku qayb ka yahay taariikhda dadka madow ee dalkan iyo maaragtay wixii ku soo kordhiyay had iyo jeer waxa la isku xidhaa Soomaalida iyo Ingiriiska wixii ka dhaxeeyay xilligii hore ee gumaysiga anigu aad baan u nacabahay ma aha wixii naga dhaxeeyo qurux badan taasi taariikh gumaysi bay ahayd xaqiiqda dhabtay waxay tahay waxa naga dhaxeeya inaga iyo Ingiriiska dadka second generationka age-kaaga dadka ku dhashay ku koray kuwaas bay naga dhaxeeya hantida ugu weyn ee wada leenahay waa kuwa marka aynu hantida qoloba dhinac wax gashanayso inagu inteena waanaynu gashanaa afkeeni dhaqankeeni hidaheeni wanaageeni iyaguna dabcan ilaa dadkan bay u dhasheen carruurtani waa carruur qolofta uu ka ah Soomaaliya waa carruur British ah iyana waxoodii bay gashay marka dad waxa inaga dhaxeeyay muhiimka ah inaynu wax wada gashano marka Somali Week waxaan ku asteeyaa anigu waa wax wada gashiga waxa aynu wada leenahay ummadda halkan joogta iyo ummadda xagga ka timi inuu u noqdo furay sanadkan saadaradeed waxa uu isku bedelaa fanka noocyadiisa oo dhan waa la doodi doonaa waxa laga hadli doonaa waxyaabo gaar ah inoo taabanaya waa la hadli doonaa suugaanteeni baa laga hadli doonaa Saciid Saalax Axmed macallin Saciid Saalax baa jooga carruurta iyo waxa loo qorayo baa laga wada hadli doonaa qorayaal fara badan oo ka yimid afar qaaradood inuu ka yimid kala kaan oo Asia iyo Africa iyo America iyo Europe inuu ka yimid jooga waxa laga hadli doonaa qiimaha afkeenu leeyahay iyo waxa ka qaldan in rabnaa inaynu dib u saxno labada cisho soo socda gaar ahaan waa laba cisho aniga gaar ii taabanaya wasaad sheegtay afka iyo dhaqanka iyo suugaanta waa saddex waxo aan ka dhigtay shaqadeydii sanadii u dambeeyay بريتي يساعد بوحي نقول دون عن مالمها أقول العلوس إدت كافرها بدنا أما عبد الله حسن جناي وهرجيسي نوجيمي أما هالنقطة سعيد صالح عمريك نوجيمي إيه أنت أقول حيسا أما هالكن شوكت أما سويدن كتيم أما هرجيسي كتيم أنت سوق في كهل دونان بوقت أسبوع صباحي سوقان تكهل دونان جارهان قيب إنه ضيعناه قيب تدلينيرة ضيع عروت وحلاقة أي صباح دونان توجدهم بس يتابعون يسوي حويه ساعة شيء سعيد محكور هذا عبد القادر سعيد في الإنسامينتو ووح أين لحين وينقلوا ماي سأني تاسي نقولوا من السوق اليوم ووح أنا قوم هذا نقيه أورجانيزر السنة كان كنت
qaarna ii taabtay aan aadna aan u soo dhaweeyay dabcan maxamed biike iyo iskilaaji baa jooga oo gabagabada habeenkaas waxay noqon doontaa habeenada ugu farxda badan anigu aad ka jecelahay anigu ma qarsado qiimaha uu yahay musiga iyo farxadda aanu hayo markaa aad baad mahadsantahay jaamac faadimo qofkii raba barnaamijkan inuu yimaado Somali Week qaabka uu toddobaadkan quruxda badan u socon doono iyo barnaamijyadu sida ay u kala dhici doonaan iyo waxyaabaha jeceshahay inaad gaarsiiso bulshada Soomaaliyeed ee ku nool UK ee ku daawanaysa aad rabto inay ka soo qayb galaan maalmaha haray bal isku wada daba xidh إن شاء الله بري وحويان مالنتي عروتا مركا قرابة نوغي يمي قبر يرو كنتي لان يرى هو قرب جوج أبا نوغتي مريكان كبوك قرتي عروتا كشكينيا أو عروتا مناسبة وسمينيسا قروح بدن وعروتي محلي هذا هل كان كسو قري وليبا وحان لسمينينا عروتا فرشحن وحا كلو جرا قراج السعيد صالح باجوجا عبد الله حسن جني ومحلي هذا هبينكي قبي event قبي نو سمينيا وحا سيدو يري جامع فيلم ميكر كي عبد القادر أحمد سعيد بانو لجوجا مالنت خميس تا وفيلم نايت صدح فيلم بانتو سينا فيلم كيسو كوتشرو يو فيلم ميكرز كله مركا هبينكاس يا لق مقنانين إن شاء الله هاي سيدو كله هبينكي قدام بيجي وحنا لنا هاي 26 كا Somali Week إسكالاتشي يبيكي أي تمي دونان يدنا يلا موجانين على قصة قيم كلو برامج قروح بدن oo sanad kasta Soomaalida UK ay isku muujiso dhaqankooda iyo afkooda weeyaan Somali Week yalla idin wayn baan leenahay aad baad u mahadsantiin jaamac iyo Faadimo thank you very much waraysanayna barnaamijka Cabdiraxmaan waa sanadkii ugu horeysay oo ka soo qayb galo bal waxaan ka waraysan doonaa sida uu u arko barnaamijkan loogu dabaaldegayay toddobaadka dhaqanka Soomaalida Somali Week anu waxaan ka mid ahay volunteerska caawa isaguna saaxiibkay wuxuu ka soo mid noqday volunteerska waa ku faraxsanahay shaqada aanu hayno community-ga bulshada Soomaaliyeed ee ku nool UK taas soo dhawo blort saaxiib marka hore walaal aad baad u mahadsantahay Cabdiraxmaan horta runaantii aad baan ugu faraxsanahay inay noqoto markii ugu horeysay aan ka soo qayb galo Somali Week waxaad filisay markaad soo socotay maxaa niyadaada ku jiray sawir nooceeya waan garan karaa anigu sanadkii ugu horeysay waxay ahayd 2015kii saaxiibkay Maxamed Saciid Cabdi PK oo sanadka numberti ku abaa joogay sanadkaas waxaan ka yimid Afrika sawir qurux badan waxyaabo badan baan niyada ku hayay bal markii maxaad niyada ku haysay horta iyadoo ay tahay markii ugu horeysay Somali Week ka soo qayb galo horta runaantii waxay noqotay wax aan ka helo ma og tahay taariikh badan oo Soomaalida ah haday noqoto dhaqankii haday noqoto gabayadii horta aad baan ugu faraxsanahay in ay micnaha noo noqoto saameyn generation ka dambe ama bulshada dambe soo socota oo waxaanu ka faa'iideyno wixii soo dhaafay Cabdiraxmaan Daawus waxaad ka mid tahay dhalinyarada ku nool UK dhalinyarada kale ee nala midka ah ee ku mashquulsan waxyaabaha kale barnaamijkan uu dhaafay caawa maxaad toddobaadka soo socda u sheegaysaa ama fariin nooceed u gudbin lahayd horta wallahi fariintan u gudbinaya waxay tahay horta Soomaalidu sideedaba waxay dhahdaa qof walba qumanihiisa qorto u sugan moogtahay marka qofkii aqoon leh oo garasho leh wuxuu badanaa uu sihirti ku sameeyaa ama uu raadiyaa dhaqankiisa ama wixii ka maqan isaga waxtar u leh laakiin dadka anu waxaan leeyahay macnaha dadka kale ka maqan barnaamijyadan ama dadka kale ka maqan isku xidhka Soomaalida ama isku xidhka dhaqamada waxaan leeyahay horta aad inaad ugu soo dhawaataan haddii aynu ka adkaano dhaqankeena waxaynu ka adkaan karnaa waxyaabo badan oo inaga nagu soo socda dhaqanku waa astaanta kaliya ay ummad ku taagan tahay marka waxaan halkan aan maxay bogaadin uga dirayaa dadka xafladda soo qaban qaabiyay adigu aad ka mid tahay Cabdiraxmaan Cumar Cabdi waxaan leeyahay Somali Week wax badan ka faa'iiday aad baad ugu mahadsantahay walaalka hooyo korbay taashaa dhalinyarada halkan ku kortay waxaa lagu xantaa inay af Soomaaliga ka sii lumayo daawus af Soomaaliga aad u fiican baad ku hadlaysaa waxaan marayaa dhawaan badalka hadda wadanka waxaan joogaa 2 sano joogaa ما شاء الله وكان مقطع عبد الرحمن وحكم دي هيدا ليرada active-ka ah ee ku nool dalkan Ingiriiska caawa waxa uu ka soo qayb galay barnaamijka Somali Week oo ah barnaamij ay Soomaalidu ku muujiso afkooda iyo dhaqankooda iyo waliba hidahooda ay u bandhigaan bulshooyinka kale ee ku nool dalkan Ingiriiska barnaamijkan kooban waxa idin soo diyaariyay anigoo ah Cabdiraxmaan Soomaali waxaana kamarada ii haya saaxiibkay Cabdiraxmaan Daawus intaynu barnaamijkan la mid ah ku kulmi doonana waxaan idin leeyahay amaana Allah